Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada cashirkii tobnaad iyo shabakada Kobciya Media iyo Al-Ustaad Injineer Xasan Maxamuud Firqi. Xogaa waxaan rabnaa in dib ugu noqono if function. Tusaale ahaan waxaynu nidhi equal if haddii baa la yidhi godkaan rabnaa inaan tilmaamno godkaan f2 aan ka wada f5 if haddii f5 uu la mid noqdo 100 anaa 100 haddii la soo geliyo waxaad qodhaa yes qor haddii kalena waxaad qodhaa no dheh then laba bracket soo xir laba bracket dhigo okay macnaha waxa weeye if f5 haddii uu la mid noqdo okay waxaan nidhi haddii baa la godkan f5 100 la soo geliyo yes dheh haddaan la soo gelina waxaad dhahdaa no hadda no buu yidhi sababtoo ah waxba lama soo gelin hadda 100 markaan geliyo yes ayuu dhahayaa markaan 200 geliyona no ayuu dhahayaa sababtoo ah conditionka ayaan sidaa ugu xiray sidaas ayaan ugu xiray marka wuxuu noqonayaa iftu qaabka tusaalahaan ku celiyo hadda halkan oo kale waxaan geliyey 200 okay waxaan dhahayaa halka haddii 200 soo geliyo yes dheh haddii kalena no dheh equal if haddii halkan magaceed h9 way h9 haddii la soo geliyo hadday ka weyn tahay ama leeg tahay 200 hadday ka weyn tahay ama leeg tahay 200 comma waxaa dhahdaa yes haddii kalena waxaa dhahdaa no dheh bracketka laba jeer waa kaas hadda 200 way leeg tahay okay haddaan 100 geliyo no waa inuu dhahaa no sababtoo waxa la yidhi haddii godkaas hadda 100 ku jiro uu ka weyn yahay ama leeg yahay 200 hadda wuu ka yar yahay mana ka weyna mana leeka marka wuxuu dhahayaa no okay haddii aan laakiin 300 geliyo waa inuu yes dhahaa yes waa kan yidhi marka halkaas maxaa ka dareemaysaa iftu qaabka ay si basic ah u shaqeyso insha Allah la soco cashirka ku xiga insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.